sanooyinkii u dambeeyayba xerada qaxootiga ifo waxay ku sugnayd xaalad halisteeda leh oo ma aragtaayay nolosha bini'aadanku ay halis lagu sugan yahay. marka waxaan dhihi karaa sanooyinkii u dambeeyey dadka ku nool kaamkan Dhadhaab guud ahaan xaalad biyo la'aan ah oo aad u ba'an oo ay hay-adaha qaramada midoobay ay og yihiin waxana ilaa hadda aanan laga qabanin baa ka jirta kaamkan Dhadhaabeed guud ahaan. ilaa waqtiga aad sheegtay dheera maxaa looga qaban waaya wax waayo waynu ognahay biyuhu waa aasaaska nolosha bani'aadamka. Bidhaanow adeerow kaamkan Dhadhaab waxaan degannahay 34 sanaan degannahay 1991 baa qaxootigii u horeysay lagu bilaabay. hay-aduhuna muddada wax badan bay qabteen laakiin waqti xaadirkan hadda lagu jiro 5 sano hadda u dambeysay dhibaatooyin ba'an baa ka jirtay oo biyo la'aan, daawo la'aan, waxbarasho xumo haba ugu sii daraato dhanka biyaha. xeryahan Dhadhaab iyo Ifo iyo meelahaas dhan marka hore asalkooda markaad u sharaxdo dadka Soomaaliyeed iyagoo ay deegaankaasi garaneen xeryahan biyaha halkee ka helaan ma meel dooxa ama ceelalbee ka helaan ma booyada u dhaamiya waa sidoo horta nidaamka biyaha ee xerooyinkani. tusaale haddaan ku siiyo adeerow xeradan qaxootiga Ifo ee aan hadda degannahay waxaa jira 8 ceel oo ka shaqaynayay xerada qaxootiga Ifo waxayna 8 ceel ku shubi jireen 14 haamood bay biyaha ku shubi jireen 14 haamood waxay waraabinayeen 9 section oo ay ka kooban tahay xerada qaxootiga Ifo. waxa marka jirta ceelashii ama matooradii 14 haamood biyaha ku shubi jiray dhammaantood say u dhan yihiin marka laga reebo mid iyo laba way wada duugoobeen. 3 sano hadda ka hor ayaa la rabay in la bedelo. hay-adii UNHCR ee qaramada midoobay maaragtay u qaabilsanayd qaxootiga ee dhaqaalaha bixin jirtay waxa weeyaan waxaad moodaa baryahan dambe inay dhaqaale la'aan ay soo food saartay. waan gartay adigoo soo koobaya markaa gudoomiye ku-xigeen maxay kula tahay markaad eegto idinka dhankiini dadkii maamulkii xeryaha qaxoontiga dowladii Kenya hay-adii caalamiga ahaa maxaa xalku yahay ilan xal baa loo baahan yahay. annagu ka maamul ahaan in badan baanu cabasho geynay hadday tahay UN-ka iyo hadday tahay hay-adan biswan ee ma aragtay biyaha qaabilsan intaba sanooyinkii hadda u dambeeyay cabasho baan wadnay meel walbana waanu gaarsiinay cabashadaanada hadday tahay dawladda Kenya hadday tahay hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga sida UN-ka oo kale hadday tahay kuwii kaleeta ee yaryarka ahaa ee iyagu hawlaha wadwaday. marka waxaa weeye ilaa iyo hadda wax ma aragtay wax gal ah oo aan ku sheego adeerow Bidhaanow oo caawa aan ma aragtay ku dhaw waxa iyo waxaasaa jira ma jiraan marka laga reebo haamihii oo hadda dayactir lagu wado. dhibaatada ugu ba'anna waxay naga haysataa beebabkii 1991 dhulka la geliyay way xidhmeen wax isbeer baartis oo lagu sameeyay ma jiro. ceelashi say u dhan yihiin matooradii waa wada baaba haamihii way wada googo'een. wax hadda aan taaban karo aan dhihi karo marka laga reebo dhowr haamood oo dayactir lagu wado waxaanan ahayn oo aan ku sheegi karana ma jiro. marka xaaladdu waxaad moodaa hadday sidan lagu sii socdo inay noqon doonto wadankii Soomaaliya inuu nin walba iski ugu guuro.